mudane madaxweyne iyo dhammaan madaxda kale oo meesha fadhida iyo inta kale ee ka soo qayb gashay dhammaan waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. afka mayga waxaan dhahnaa annaga akyaar garaa iska diidasna gogol miska diidas sideedaba koowaaba lagu bilaaba markii qofku wuxuu qabo maba ogiye haddaa iska sii diidid oo si uun isaga qiyaastid waa laga fiicanya. aniga dooda ah pointska dowladda ay rabtay inay meel mariso iyo kulli doodaan ka qaba dibaan ka sheegaa waana dheerihiinoo inta hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu hadlay in ka badan ayaa laga yaabaa inaan hadlo oo qodob aan u dul istaago laakiin maadaama hadda furitaankii uun ay tahay ma gelayo hadda. waxaan leeyahay horta dadka naga maqan waa muhiime horta ha la helo dadka naga maqan aniga stakeholders ma aqaan sida loo sharxo stakeholders qofka ah xitaa ma aqaan aniga stakeholder tusaale ahaan hadduu madaxweyne inta yimaado mid aan soo hooyan karin ra-iisul wasaare laga dhigo beri stakeholder miya ninkaas oo dadka dhan muu ka horeyna macnaha ma fahmi karaba aniga stakeholder. haddii mid xoolo ah guddoomiye baarlamaan uu iska noqdo stakeholder miya ma aha. waxaan marka la leeyahay stakeholderka aniga ma fahmin dadka inta ay maskaxda ku jirto wadaniyadana leh ilaahayna ka baqaysa diintana wax ka yaqaan dalkana wax jeclo ay ka hayso talana keeni karta dadkaas aniga stakeholder u aqaan ama horaan wadanka usoo xukumeen ama aysan usoo xukumin horta aniga stakeholder dadkaas aan u aqaan. now dadka qaar waxaa laga yaabaa inay iyaga isu arkaan inaan ka wado haddaan tuug tilmaamo qofka tuugga u ekaada dhaqankiisa aniga maxaa ii dhahday ima dhihi karo ilaan asaa tuugga u ekaanaya ee aniga hebel tuugaa tahay qofna ma dhahayo. sideedaba bukati boqolaan taliyaas qofka markuu xanuunsado boqolaa u taliso dadka soomaaliya hadda xaaladda ay marayso way bukootay qof alla qofka lagu tuhumayo maskax ayaa la helayaa in la raadiyo. madaxweyne aniga waxbaan kaa sheegaa adna waa og tahay bannaankana waa kaaga sheegaa adigana waa toosaanba kuugu soo qoraayo nambarkaaga waa haystaa. micnahaygana maaha nacayb aan adiga iyo reerkaaga iyo aan u qaba ma aha xikmad badanna waa kugu tuhmaa aniga adigana waa soo wada shaqaynay ninkii ugu horeeyey oo siyaasadda dowladdaada ahayd gobernatoore iiga dhigtay gobolka baay waxa aan la xallin karin oo aad u dhib badan ayaad soo xallisay. maalinkii aan xafiiska kugu imaanayay oon ku dhahay madaxweyne baydhabo waa gubanaysaay aniga aan kaaga horeeyo ood iga diidaysay oo waa israacinaaye dhib male weliba waxay dhahday adiga iskaar haddaa rabtid oo si uun odayaasha aad uga baqayso. maalinkii dambena ayadoo wadooyinka la xaaqaayo oo wixii taayiro la gubay kulli dhulka la xaaqaayo aniga allah u naxariistee guddoomiye jawaari ayaad naga soo tagtay. waa yeeli kartaa madaxweyne karti badan xikmad badan aan kugu tuhmaa waa yeeli kartaa saas darteedaan horta adiga bannaankan wax kaaga sheegaa adigana toos aan wax kugu sheegaa adigaba dadka waa ka sheegaysa markaad bannaanka joogtay macnaha ma aha wax qarsan ma aha inaad qaadi kartaan ku ogaa. sideedabana aniga hadda inta maxaa ay keenay dadka qaar waxay leeyihin maskaxdiia waxay u samaysantay tiimkii jasiirana waa la joogtay intana waa la joogta maxaa diidaayo meeshii soomaaliya xalkeeda uu yaalla in qofka uu tago taladii geeyo maxaa diidaayo. wadaniyadda waa difaaca dalkaaga had iyo jeer iyo difaaca dowladdaada markay saxan tahay. hadda madaxweynaha jamhuuriyadda hadduu yiri ha laysu yimaado aniga waxay la noqotay inay saxan tahay loo imaan karo wixii la qabana meesha laga sheegi karo. sideedabana waxaan ku dardaarmaa mucaaradka laftigooda aan leeyahay noocay doonaan ha aadeen ama madalha ku jiraan ama bannaankaa joogeene dowlad nooceena oo kale oo xaaladeeda inta ay marayso madaxweynaheeda aad looma bushgareeyo waa iska bani aadam gaalun fiiyey ay dhammaan dhaba ayaa ka dhici kartaba wuxuu dhihi karaa waxaan waaba daaqada ama ka tuuro geelaan waa didinayaa yuu damac ka hayaa ayaa iska noqon kartaba inuu iska go-aansado
taasna annaga nooma roona mucaaradkana waxaa laga rabaa miyirqab laftigooda miyirqabaa laga rabaa dadka inay u turaan sideedabana waddankan 60kii sano oo lasoo dhaafayay saaxiibkayga ma aragtay gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka iyo anigaaba ka hadalna siyaasadda geeleyda wax badanaa naga soo gaaro waa oga laakiin waa ka hadalna haddana uma joojinayn ama la caayo wixii la rabaa la dhaho siyaasaddan geeleyda zero sum ka ahna waddankan laga daayo aniga si aan guushayda u xaqiijiyo waa inaad adiga guul daraysataa siyaasad ma siyaasad tanaasul ay u baahan tahay ka daayi dagaalkii 4 bilood laha xamar oo dhan dagaalkaasaa lagu burburiyay laba nin oo ilma adeera Caydiid iyo Calimaadi labadaba Allah u naxariisto waa isu imaan kareen waa wada hadli kareen bal fiiri markay dhaheen islama hadlayno wixii ka dhacay waddankan taas yaysan noqonin markii nin shaacir loo soo dhahayo reer Baydhabo wuxuu dhihi jiray afmaay aw shaacir aw lanki jinnil ku waa inta jar lanki jinnil ku waa meel jar way ogi maaru jiraa macnaha ninkii wada hadal diido haddii wada hadal la diido meesha la aadayo waa la yaqaana Soomaaliyeed si fiican u taqaana ma aadi karno meeshaas mid kale waddankan mar walba meel soo istaago waxa leeyahay Soomaalida isku af waa isku dhaqan waa isku diin waa isku sidaas waa isku maxay tarayaan waxaas ummadaan waxba isaga mid ahayna isla nool oo isla jiro 60 sanana isdilayna waxa bilaabata waqtigii isku af isku inta iskudaas xilligay wax tari lahayd horta ha bilaabato reer geeleeyo dowladnimadana adinka waa marka tokenka laga reebo mucaaradnimadana adinka le waa marka tokenada laga reebo dadka inta soo hartay nololaa u soo hartay besa nolosha ha u diidina dadka dhammaadka shirkan walow dood badan ay la geli doono hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenkii yaa yidhi shimbireyahow heesa ayay noqonayaan haddii sidaas iyo sidaas aan la yeelin annaga afka maaga waxaan dhahnaa oolka ma weelaa dhaanka ma infuur maanta o dhan maxaa u daldalnay warkaagaba haddaan la yeelay annaga inta fariisano wixii ay nala tahay sheegno inta wax iska ma arag hadhow haddaan wax laga qaadan doonin dhaanka ay maadnayn ku fuursinay inta siyaasadda ku jirta waxaan ku soo koobayaa sida uu sheegay sheekha way ka yar yihiin 1% maalin kasta 99% shacabkaas ahaa go'aamo qaldan loo qaataa oo lagu baabi'inayo daraad xukuumaddii maxamed siyaad allah u naxariista iyo intii la socotay markay dhacayeen odayaal yaroo heshiin waaye oo isku jaamacado ahaa isku kulliyado ahaa ayaa yidhi maalin dambe waa isdagaalaynaa annagoo dhan ay go'aan noo qaateen waa ka soo kaban la'anahay ilaa iyo hadda go'aanka aa qaadanaysid aakhirana waa lagu weydiina adduunyadana waa lagugu ciqaabaa 99% ama ku jir dowladda madaxweyne ahow ra-iisul wasaare ahow waxa doonto ahow ama bannaanka joog go'aanada ummaddan loo qaadanayo ha ahaadeen go'aano ku salaysan wadaniyad haddii kale ummaddan waa idin habaaraysaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa haddaad ummadda